والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مركو هوري إلهي بقى مهد سبحانه وتعالى مهد اللواد وعن سينا يا مدحضة شرفت لي قيمها لي ترتكن قيمها لي نحاول هالكن كده فرينو عمر صالح إنه إلهي ونحرسه إنه قوم مقعدرنا وكاكو بس جد واحد أو شركة عالمية سوم كيبل runtii aad baynu uga mahadnaqaynaa madax badan baa inooga soo qayb gashay oo in waqtigoodii inoo soo horeeyay aad uga mahadcelinayaa cabdisaaq rakuub cabdi yuusuf aar ciid muuse xildhibaan sikaawi xildhibaan siciid jaamac cabdiraxiin xato diito cabdi muuse qaasim dhammaantoodba inta ka soo qayb gashay naga maqan oo soo gaari doonta insha Allah tacaala farxad weyn baa weynoo tahay wayna soo dhaweynaynaa hay'adaha quraanka wayna ku furfuraynaa xafladda insha Allah tacaala wayna furi doonaa marka way soo gaagaabin doonaa hadii la yiraahdo maadaama waqtigu inagu yar yahay bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم حفلة نما فرندونا دي لا يرادو سي وربخي رو كوبن نو سيو قفل بن ان شاء الله تعالى نو سو كوبو عبد الشاكر خوبن كسو دوينيا دي لا يرادو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة لبعد اي قبسوميسو كوبكا سو امبلوي كاب waaxyaha kala duwan ee shirkadda Somcable ay ka kooban tahay soo aawo kale aynu ku furi jirnay doorkan tartankan waxa aynu ugu magac darnay CEO-gii ugu horeeyay ama maamulihii guud ee ugu horeeyay shirkadaha Somcable iyo soo naxariistii janna Allah siiyay Umar Saalax oo lafdhabar u ahaa shirkadaha Somcable iyo soo mar labaad iyo mar saddexaad sharaf bay noo tahay dhiirigelinta shaqaalaha aanu madaxda u nahay inaanu la dabaaldegno oo aanu la joogno la faraxno ka soo saarno waqtigii shaqada amarka iyo shaqada laga wada hadlayay marxalad la wada siman yahay oo maamul iyo shaqaalaba garoonka lagu siman yahay oo garba siman la yahay oo walaal la yahay ay ahaato farxad bay noo tahay mar labaad waxaan mahad celin u samaynayaa dhammaan madaxda kala duwan iyo ciyaartoydii hore ee Hargeysa ee caawa nagala jooga furitaanka koobka soo Imbalii Cup ee loogu magac daray Umar Saalax naxariistii janna Allah siiyo kulli magacyada ma wada gaarsiin karayo dhammaantiin waxaan mahad baan idin haynaa waxa sidoo kale jooga rag ay soo wada ciyaareen rafiiq soo noqdeen Umar Saalax iyaga ka sheekayn doona Umar Saalax waxa jooga MSG group shaqaalaheedii hore oo ka warrami doona doorkii ay ugu horeysay shirkaddu ku lahayd ciyaaraha iyo inay shirkaddu ahayd shirkaddii ugu horeysay Hargeysa ama Somaliland ka hirgelisa in lagu abaal mariyo rabadaanada ciyaartoyda hadalka badin maayo kubad fiican ciyaar fiican ciyaartaas oo isdhexgal walaalnimo keenta ayaan rajaynayaa shaqaalaha aanu maamulka u nahay mar labaad iyo mar saddexaad waanu hambalyeynaa shaqo wanaagsan iyo ciyaar wanaagsan ma leeyay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahad celinayaa shirkadda soo oo tartankan abaabulkiisa iyo qabashadiisaba leh marka labaad dhalinyarada isxilqaantay ee Cabdikariin ka mid yahay ee Mahdi ka mid yahay ee tartankan inuu suurto galo hawshiisa qabatay ayaan mahad celinayaa mar saddexaad waxaan mahad celinayaa dhammaan ganacsatada xildhibaanada aqoonyahanka dalka isboortiga ee ka soo qayb galay iyagana marka saddexaad waan mahad celinayaa haddii aan saaxiibka Umar Saalax kelmad iyo laba ka yiraahdo oo tartanka lagu xusayo waxaan qabaa inay ka culus tahay Umar Saalax inuu ka culus yahay tartan iyo lababa oo ninkaas uu yahay nin aad loo in la xasuusto ay tahay maadaama uu ahaa shakhsi ku suntan isboortiga dalka ku suldan ugu suntan akhlaaqiyad wanaagsan diin aqoon maadiya haday noqoto iyo diiniba haday noqoto marka waxaan leeyahay Ilaahay ku naxariisto Umar Saalax Ilaahay ku naxariisto ku iloobi mayno mar walba ku xusuusnaan doonaa insha Allah Ilaahay qabriga ku nuuro ayaan ku leenahay Umar waxaan leeyahay
isboortigana waxaan ku dardaarayaa sideedan kooxood tartanka halkan loogu qabtay ee ka mida waaxaha dhammaan waaxaha shirkadda soo in la hirgeliyo mar walba tartankan uu noqdo mid joogto ah oo mar walba la qabto oo Cumarna si wanaagsan loogu xuso oo de hirgala oo mar walba noqdo mid de la qabto oo mar walba saaw shaqeeyo insha Allah waxaan rajaynayaa in uu noqon doono tartankani mid ku dhamaada akhlaaqiyad wanaagsan ciyaar wanaagsan tartan wanaagsan noqda oo maadaama Cumar Saalax uu ku suntanaa akhlaaqad wanaagsan sportigana uu ka mid ahaa dadka ciyaaro dadkii ugu akhlaaqada wanaagsanaa ku dayashadiisii ayaa laga rabaa inay isla yimaadaan sportiga dadkan kubadda maanta gacanta ku haya ciyaaraya waxa weeyaan ilaa maalintuu yaraa ee uu 10 jir ahaa iyo ilaa maalintii uu ka dhintay waxaan inaan mar kaliya ta kubadda ka caqaaday waxaan in sportiga jecel waxaan sportiga ku soo ababo yaraan ka soo bilaabay 10 jir dhowr 10 jirkiisii tiiban buu ku jiro ka mid ahaa nin sportiga jecel buu ahaa nin xirfadiisa kubadeed aad u sareysa ayuu ahaa marka waxaan leeyahay mar walba dhalinyarta waxaan leeyahay ku dayda cidii soo gaadhay ciyaartiisa aragtay cidii akhlaaqiyadkiisa aragtay inay u dhaqanto akhlaaqiyad wanaagsan sportiguna markaas uu noqonayaa sporti lagu soo hirto kuwa ka dambeeya ay si wanaagsan u ciyaaraan marka hadalka waxba badin maayo dad baa iga dambeeya insha Allah hadalka iga dambeyn doona intaasan ku soo xusaya saaxiibkay waxaan leeyahay ku naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay waanu mahadnaqaynaa goobtan isku keenay lagu xusayo Allah u naxariistay Cumar Saalax Cumar Cabdi Xasan waxaan halkan ka salaamayaa madaxda halkan iskugu timid agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga xildhibaanada golaha deegaanka ganacsada Cabdi Yuusuf dhamaan martida ka soo qayb gashay xafladan waxaan u mahadnaqayaa shirkadda soo qaban qaabisay qeybaheeda kala duwan ee waaxaha shirkadda u qabatay tartankan Allah u naxariistay lagu xusayo Cumar Cabdi Xasan Cumar Saalax halkan kuma soo koobi karno taariikhdiisa nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa nin ciyaartooy aad u wanaagsan buu ahaa kooxda MBB wuxuu ahaa hormoodkeeda lagu daydo wuxuu ahaa kabtankii kooxda ee hogaaminayay madaxda uu ahaa ilaahay ha u naxariisto halkan koobitaan lagu soo koobi karo oo halkan lagaga sheekeyn karaa teemkaana inagu yar waxaan ku soo gabagabeynayaa Allah u naxariisto nin aad iyo aad u wanaagsan oo sportska heer ka gaaray oo ku dayasho mudan oo aan leeyahay dhalinyarta maanta taagan sidoo isagu ahaa in lagu daydo oo magaranayay Allahumma salli ala Muhammad wanaagiisii iyo qiimeyntiisii iyo xagga diinta iyo xagga akhlaaqda iyo xagga maadiga ku wanaagsan baha ilaahay ha u naxariisto isaga iyo nimankii kale ee kooxda kamid ahaa Mustafa ilaahay ha u naxariisto Mustafa Dagadago dhamaantood waxaan u rajeynayaa inuu ilaahay janno firdawso geeyo oo jannooyinkiisa ugu deeqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku suganay garoon kamid garoomada caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ku yaala magaalada Hargeysa waa garoon uu maamulo arday kamid ardaydeedii magaciisa la Cabdikariin Guji una ciyaara kooxda ciidanka qaranka xafladan waxay daaran tahay xusidda haliyadii ku suntanaa kubadda cagta kana mid ahaa dhalinyartii aad u firfircoonaa ninkaas oo Allah u naxariistay aan u ducaynayno magaciisuna ahaa Cumar Cabdi Xasan Cumar Saalax taariikh badan baan soo wada qaadanay in badan baan soo wada ciyaarnay in badan baan soo wada shaqaynay in badan baan soo wada baranay waxa dhalinyarta la xasuusinayaa dhalinyartii ka horeysay ee kubadda ku suntanayd bal inay ku daydaan xusaan si iyagana markooda loo xuso waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Som Cable oo suurto gelisay inay dhalinyarta sidan oo kale isugu keento una xusto koodii haldoorka ahaa waana jecelnahay in kambaniyada waaweyn ay hormood ka tahay soo gasho Som Cable oo inagala fadhiyo Cabdirasaaq maanta aan aad ugu bogaadinaynaa xusuusashada ay xasuusteen dhalinyartii inay wax u qabtaan kambaniyada kale waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sportska guud ahaan ay wax ka geystaan anoo ka faa'iideysanaya fursadaydan jecelna in bulshada reer Soomaaliland guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa inay dhalinyarta u soo jeestaan garoomo ku filan oo sameeyaan waxa kale oo aan mahadnaqa iyo bogaadinta Som Cable uga faa'iideysanaya inay Som Cable hormood ka noqoto dhamaystirka garoonkii Shulaac Stadium oo aan in muddaba ah ilaa wuxuu gaarayay ilaa 15 sano aan la soo rafarinay
anagoo dhalinyarta halkan fadhida ay qayb ka yihiin hirgelintiisa deyrkii uu leeyahay uu xayndaaban yahay uu ku filan yahay dhalinyarta caasimaduna maanta waxay u baahan tahay garoomo badan oo helaan dhalinyartu si ciyaaraha knockout-ka ee labada jeer la ciyaarayo ay ugu qabsadaan waana iga makhraati mahadiyo ag taagan oo sidoo wala ahi inuu la rafaadaan marka ciyaaraha isku adaadka sida adag la soo baxayo ay noqoto in ay adkaato in berberiyo burcyo la geeyo iyo boorama marka waan jeclaan lahaa caasimadaha dalka oo dhan inay yeeshaan garoomo ku filan waana mahadsantihiin waana ku bogaadinayaa dhammaantiin bismillaahi raxmaani raxiim caawa halkan waxaynu u joognaa tartanka loogu magac daray ciyaartooygii weynaa allaha u naxariistay cumar cabdi xasan cumar saalax oo ay maalgelinayso ama soo abaabushay shirkadda soo runtii aad iyo aad baan marka koowaad ugu hambalyaynayaa shirkadda doorkaasi xuska iyo xasuusta mudan ee ay caawa halkan ugu tala gashay in lagu xuso laguna maamuuso CEO-gii ama maamulihii u dambeeyey ama wakhtigii aanu geeriyoonin ahaa maamulaha shirkadda soo runtii shirkadda MSG Group guud ahaan marka laga yimaado soo oo qayb ka mida uuna waxay ku suntan tahay oo ay taariikhda ku gashay inay mar walba isboortiga dhiirigelinaysay oo dhiirigelin jirtay markaad Cumar Saalax maqasho ama aad MSG soo qaado aniga noloshayda waxay ku leedahay xasuus waayo Cumarna waxaanu ahayn saaxiib in badan wax badan soo wadaagay shirkadda aanu ka wada shaqayn jirnay ee MSG-na waxay ahayd shirkad runtii aan waqti dhowr iyo 20 sano imika ka soo wareegeen aanu ka wada shaqayn jirnay inkastoo isagu in badan igaga dambeeyay oo uu shirkadda in badan ka shaqeeyay Cumar waxaan ku xasuusan karnaa inuu ahaa ciyaartooy qaaliya akhlaaq badan xagga diinta ku fiican xirfadaha isboortiga iyo gameskana aad ugu wanaagsan oo ugu fiican in badan baanu waqti soo wada qaadanay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo caawa markaan runtii sawirkiisa halkan ku arkay xusuuso badan iyo waqtiyo badan iyo taariikho badan oo aan soo wada maray ayaan dib u galay mar waan naxay marna runtii sida imika loo maamuusayo ee loo xusayo dee waan ku farxay MSG waan u ducaynayaa iyadana 1998 waxay ahayd shirkadda keliya ee waqtiyada rabadaanta jaayisada ku siin jirtay ciyaartooyga 98ka waxaan ahaanu qofkii abaabulay aniga oo shirkadda ka mida in koobka rabadaanta lacag lagu bixiyo iyadoo uu hawsha hirgeliyey maamulahaygii waqtigaas Saacad Axmed Xasan Roodhiile mulkiilihii shirkadda oo Maxamed oo Saciid Geedi ahaana uu naga aqbalay soo jeedintayadii markaa runtii caawana inay koobkan qabatay waliba ku xusto Cumar Saalax waxaan u arkaa arrin aad u muhiima ilaahay ha u naxariisto Cumar halkan waxa fadhiya ciyaartooy iyaguna qaali ah oo Cumar soo wada ciyaareen annagu waxbaanu soo wada baranay in badan baanu soo wada safaray meelaanu ka wada shaqaynay nolosha meel aanan wadaagin ma jirin dardaarankiisii u dambeeyay oo aan qoraal ka hayo waqtiyadii u dambeysay ee u dhiman doonana runtii waan kaydsaday wax badan oo aniga iyo si guud iyo si gaaraba ii farayna wali waan fuliyaa waanan runtii ku camal falaa talooyinkiisa iyo wanaagyadii uu runtii ii soo jeedin jiray ama uu ummadaba u soo jeedin jiray waxaan ku soo gabagabeynayaa tartan qurux badan ha noqdo tartan ka turjubaya akhlaaqdii iyo wanaaggii iyo xirfadii Cumar Saalax ha noqdo aad iyo aad baa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina wa saxbihi wasallam ugu horreyn ilaahay baa mahad leh barnaamijka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabaddan furitaanka wareeggan waxaa mahadda koowaad iyo talabaad bale ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda sow oo runtii dee aan leeyahay shirkadaha kale ee dalkan munaafacaadka badan ku qaba inay iyaguna ku daydaan
waxaan rajaynayaa koobka maanta ay shirkadaasi qabanayso oo loogu talagalay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya loogu magac daray nin qiimo weyn ku lahaa guud ahaan ciyaaraha iyo qaranka iyo shirkadaba bidmillaahi kariim cumar sayid oo taariikhdiisa ay ka sheekeeyeen raggii ay ciyaaraha iyo saaxaddaba ku soo wada jireen muddada qiimuhu lahaa cid waliba way garanaysaa shirkaddana waxaan uga mahadnaqaynaa inay sanad muddada iminka dee xidhiidhka ay u qabanaysayba runtii inay aad iyo aad baan dee ugu faraxsanahay runtii in dadka wanaagsan la xuso oo runtii dee ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya intan iyo in ka badanba waa uu mudan yahay waxaa kaloon caawa halkan dee iyadana ay dee farxad weyn ay noo ah in dhallinyarada dhiirigelin ay u tahay ciyaaruhu dee waa wax weyn runtii marka la eegayo mujtamaca bulshada dhexdeeda maskaxdaa la korinayaa muruqa la korinayaa jidhkaa la korinayaa maamkaa la korinayaa shirkadaha ganacsatada waaweyn ee sida sooy oo kale runtii waxaan rajaynaynaa inay door weyn ka qaataan arrimaha garoommada iyo ciyaaraha waa anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan runtii caawa waxaan ambiil u dirayaa milkiilaha ama shirkadda soo iyo samkaybelba inay nagala qayb qaataan labada garoon oo rajada iyadu ay tahay runtii inaannu ka dhigno aanu dhigno roog garoonka xawaadle iyo garoonka dhalinta oo runtii aan rajaynayno inay noqdaan sida kanoo kale oo roog la dhiga bidmillaahi kariim waan ognahay oo wax badan bay ka qayb qaataan waxaa ugu dambeysay xabaalaha iminka ku yaalla State House-ka oo ay shirkaddan maxaan idhahday MSG ay dhisayso dayrkeyga oo maanta qofkii maraabo ugu ducaynayo oo la garanayo wax badan oo khayriya bay shirkadahana ka qayb qaadaan ganacsatadu ka qayb qaataan waxaan rajaynaynaa labada garoonna bidmillaahi kariim inay nagala qayb qaadan doonaan dhiskooga iyo qabayntooda iyo casriyeyntoodaba aad iyo aad baad mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبين آدو قالية فرحات بيتهاي إن قيب كنقضو كوب كان وجو برديقينو أما نكو حسينو هليجي وينا كوبدا عكتا عاصمة هرقيسي سومال لامبا سيدو كلنا ها أساسياشي شركة السوء يسم كيبل ورنتي ها أدون أخلاق iyo edaab iyo diin badan ku dayasho badanna mudnaa runtiina wax badan lagu xasuusto dhinaca sportiska iyo dhinaca shaqadaba labada dhinacba runtii wuxuu yahaa waan ku soo akaray Cumar wuxuu yahaa mentor ama qof ihoga tusaaleeya nolosha jihooyinkeeda oo dhan Cumar waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto naxariis waasica ha siiyo isaga iyo intii dhimatayba waan u ducaynaynaa Cumar wuxuu ahaa haliyey intan in ka badanna uu naga mudan yahay laakiin waa inta ugu yar ee lagu xasuusan karo waxaan leeyahay duco ta ugu balaaran Ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo nuur hoyga kulay insha Allah rajo badan baan ka qabay adoon saalix ahaaye janno Ilaahay waa janneeye jannada inuu Ilaahay waasic uga sii dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan ciyaartooyda kala duwan ee goobta ku sugan ciyaartooydii hore ee qaranka ganacsatada madaxda kala duwan ee shirkadda Som Cable iyo soo iyo dhammaan saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii farxad weyn bay noota inaan ka soo qayb galno kulankan ay shirkadda Som Cable iyo soo ay u qabteen ciyaartooyda kala duwan ee shirkadda ka tirsan iyagoo waliba si gaar ah ugu xuseeya saaxiibka iyo hogaamiyihii dhalinyarada isla markaana ahaa hogaamiye muddo badan ka soo shaqeynay sharaa'iga kala duwan ee dalka hormoodna runtii uu ahaa ciyaartooyga dalka iyo ciyaarahaba Cumar Saalax oo Ilaahay uga baryay naxariis janno ka waraabiyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay munaasabadana nimaadno waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada iyo ummadda kala duwan ee ciyaaraha in akhlaaqdii iyo wanaagii iyo sharaftii uu lahaa walaalkan Cumar Saalax in lagu daydo si ciyaartooygu ay u noqdaan kuwa runtii xirfad habboon leh isla markaana akhlaaqiyaadkii walaalkeen lahaa
iyo kuwa ka sarreeyaba runtii ay u yeeshaan shirkadda Som Cable waxaan uga mahad celinaa runtii in mar labaad ay xasuusisay saaxiibkayo isla markaana ay shaqaalaheedii ay u qabteen kulamadan iyo ciyaarahan farxadda leh ee wanaagsan waxaan ilaahay uga rajaynayaa mulkiilaha shirkadaha Som Cable iyo Soba in ilaahay uu u barakeeyo ganacsigiisa isla markaana khayr iyo wanaag ugu bedelo khayrka bulshadiisa uu ka dhex wado iyo kaalinta qiimaha badan ee uu ku leeyahay sidii loo kabcin lahaa ciyaaraha kala duwan ee runtii dalka waxaan insha Allah iyagana u rajaynayaa kooxaha kubadaha ciyaaraya ka qayb ah runtii tartankan in si hufan oo wanaag iyo sharaf leh runtii ay ciyaaraha u dhameystaan guul iyo wanaag baan loo rajaynayaa shirkadana ilaahay guuleeyo saaxiibkeena ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo Cumar Saalax. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.